in dhaweydba maan tirin gabay laba dhudla iyo maansooyin dhaadheer oo aan dhammaystiro dhan kastaba ka dhowro dhuuxii dalkayga la wadaago dhalinyaro balan caawo dhowre wax yaraan dhiteeyay iga hooyo dhowr eray horta dhalintaan jeclaayay dhuuxii dalkayga kuwa aan ku dhaarto rabbi iga dhaliyo Allah idin dhowree dhamayaal ma nabadba maanta waa maalin nagu dheero taariikhda noo dhigan dhalin naga horreysay Puntland aan ku dhaadana dhidibada u aasoo gobonimo dhammaystiray Allah dhowree mahad iyo ducay kuwa naga dhitaysteen idinkana dhamaantiin waxaan idinku dhaadanaayo idin dhowranaynaa dharaartii la joogaba dhab idin amaana dambaalada jacaylka asaas idinku dhiibnaa waa kuwa dhoohanyay noqon kuwa dhalaanka qaati ay cunaan ruwaayadu yaan dhabcaan la noqona macdantaan dhulkeeniya lala bixin dhaqaalaha dhalinyaro waayeel dhoofitaan naloo qorin dhaqanka iyo hidaha iyo diintaan ku dhaadana intiina laga dhalan rago gaalnimo ku dhiirana misna lagu dhowrto dhashana laga qaato sidii ruux dhantaalani dhulkana lagu xaqdo lagu xiro dhufaysyada dhowr ayaamo dabadeedna saas nagu dhameeyaan dhalintaan jeclahay ee dhagar qabuhu waligii meel dheer ma eego dharaartii la joogaba dhigtaan sii kordhaysu dhalanteedu haystaa balse uma dhacayno bulsho dhiiran baan nahay inta xumaha dhowdhiya midka dhoohaneen dhalashana aqoonina walaalnimada dhaagayn dhiigaan qulqulay iyo dhibaatadu la fududahay dhowr xumo tashiilkana waan ka dhiidhiyeynaa iyo dhamac baan u shidaynaa dhulka dahabka yaaliya naga badan dhirteennuna cadow wuxuu dhadhoowayna dheef uma naqaano dhuunta nooma mari karo dhanka kale haddaan dayo wax yaraan dhidbayiyo aan samaha dhaagana madaxweyne dhabahoo horumar nagu dhaqaaqsho runta nagu dhaqaayo bulshadana dhammaanteed dhalinyaro waayee ruux kastoo dhaliil qaba hadalkiisa dhaago sida ugu dhow iyo ku dhameeyo gobonimo taladii hoggaanka eebba noogu dheebe dhab aan la shaqeyno dhulkaan aan ku noolnahay uu dhadhamin cadaawuhu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh